وما سنتهين إيمان شاء أمانت إماتين يقولون صوب وقتين حفيزكيجا wax kale ma ahan booqashadan inaan dardar gelino howlihii shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho ay naga sugayeen ayaa ku saabsaneed waxaana kamid ahaa in aan aad u soo celino bilicdii iyo wanaagii ay lahayd magaaladan Muqdisho waana waajib dhamaanteena wada saaran kol hore waxaan la kulmay gudoomiye ku-xigeenadii maanta caraf uma yeelan maanta tiim cusub ayaa joogo tiimkan cusub ayaa waxaan rabaa inaan kala dardaarmo sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo sameeyaan daraasad ku saabsan dhibaatooyinkii magaalada ka dhacay ugu horeeyeen daadadka waxa ay ka tageen qashinka iyo wasaqdii la socotay iyo magaaladan sidii loogu heli lahaa dayactirkii laamiyada ay roobabka baabi'iyeen daraasadaas ayaan ka sugayaa hadduu alla idmo sida ugu dhaqsiyaha badan oo ah sabdiga maanta sabdigiisa kale inay ii keenaan waxaana taa barbar socoto inay aad u adkeeyaan xoojiyaan maxaa la dhahaa shaqadii ay hore u wadeen oo ah nadaafadda iyo howlahaas dayactirka ah ayaan ku wada hadalnay waxaana sugayaa tiimka cusub hawshaas baaxadda leh inay qabtaan waa ogahay waa hawl cusub waa tiim cusub oo hawl cusub iyo baaxaddeeda waqtigan uu ku yar yahay marka iyagana waxaan leeyahay dadaala waana cusub yihiin waxaan rajeynayaa inay si wanaagsan uga soo baxaan garab iyo gacan ay siiyaan gudoomiyahooda Omar Finish saad ogtihiin gudoonka gobolka Banaadir shacabkan magaalada ganacsatada waxay bixiyaan canshuur iyagana xisaab ay naga rabaan inaan celino oo ah in magaalada ay noqoto magaalo agabkeedii wixii dhan u dhameystiran yihiin marka taasna waa inaad mas'uuliyadaas qaataan oo aad ogaataan inay canshuurtaas bixiyaan dib loogu celiyo waxa ay idinka sugayeen idinka helaan waxaan iyagana ka codsanayaa ganacsatada inay gacan siiyaan gobolka Banaadir oo waqti xasaasi lagu jiro inaad gacan ku siisaan oo kulan wada yeelataan iyagana u soo jeediyay waxaan kaloo rabaa in maxaa la dhahaa ay aad uga taxadaraan amniga magaalada Muqdisho meelo badan oo amnigeeda aad u baahan yahay in la sugo meelaha wadooyinka aan leerarka lahayn si aysan kooxaha nabadiidda argagixisada aysan uga faa'iideysan oo magaalada bilicdeedana wax ka tarayso amnigeedana wax ka tarayso leerarkaasna dib loogu soo celiyo way ku dhageeyeen saan qiyaasay laakiin waxay u baahan yihiin dayactir u baahan yihiin amniga gaarka ay magaalada u baahan tahayna waa tan maxaa la dhahaa in isha lagu haayo oo qof kasta Soomaali ah gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho ay aad u adkeeyaan amnigoodii iska ilaaliyaan argagixisada midaas waxaan kaloo u sii raacinayaa in ay aad u feejignaadaan waxyaabaha magaalada ka dhici karo oo ah maxaa la dhahaa inay nabadgelyo darro ay ka dhacdo iyadana ay ka digtoonaadaan shacabka waa shacabkeennii waa inay isha ku hayaan annagana waxaan ballan qaadnay inaan shacabka markasta garab taagannahay saas ayaan idinka rajeynayaa dhammaantiin inaad hawshaas ka qayb qaadataan wabillahi tawfiiq